صعبنا هالوطمو صعب 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 بدن هالوطمو برتوا قرون بوعدي عيارها بربارتي لصوحي ترتان لوغو باقي بوشي خير ليطمو يا أبو سركعة صعب 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 صعبنا هالوطمو صعب 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 بدن هالوطمو kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo kaga hadli doono tartanka ciyaaraha gobolada iyo maamul magaalooyinka oo deegaanka Soomaalida oo markii toddobaad la qabtay isla markaasina ee maanta si rasmi ah loo soo gabagabeeyay kadib markii kooxda ka socotay gobolka Jarar ay kula kaga adkaatay ee kooxda ka socotay gobolka Qoraxay kulankii ka badbaynta dabcan labada kooxood ayaa isku yimiday ciyaar xiiso lahayd oo boqolaal kamid ah taageerayaasha iyo waliba sidoo kale jamaahiirta labada kooxood ayaa ka soo qayb galay garoonka kubadda cagta ee maamulka magaalada Jigjiga ayaa dabcan ciyaartaasi ka dhacday ciyaarta waxay ku dhamaatay waqtiga loogu talagalay hal gool iyo hal dabcan xidiga isko iyo waliba sidoo kale xidiga Cabdicasiis ayaa bandhiga goolashaasi ka caawiyay labada kooxood ee gobolka Jarar iyo waliba sidoo kale gobolka Qoraxay ugu dambeyntii waxa lagu kala baxay waqtiga loogu talagalay in gool kulaag lagu kala baxo waxaana ay guushu raacday ee kooxda ka socotay gobolka Jarar kadib markii saddex ciyaartooy oo gobolka si Qoraxay laga qabtay gool kulaagaas isla markaasina gobolka Jarar ay dhamaan goolashaas ay wada dhaliyeen haddaba dabcan natiijooyinkii ciyaaranadii ugu fiicnaa abaalmarintii kala duwaneed ee la bixiyay ayaan dabcan aan ku falanqeyn doonaa barnaamijkan gaarka aan kaga hadli doono ee tartanka ciyaaraha gobolada iyo maamul magaalooyinka ee deegaanka Soomaalida markii toddobaad la qabtay waxay kala qayb gali doona dabcan barnaamijka wasiirka xafiiska dhalinyarada ee ciyaaraha ee deegaanka Soomaalida mudane Xasan Faarax Cali oo dabcan barnaamijka kala qayb qaadan doona haduu ee beedmo mudane Xasan wasiir aad baad u maasan tahay ee waqtiga qaaliga aad noo hortay waxaan isku day doonaa xoogaa inaan faahfaahino aan falanqeyno tartanka ciyaaraha gobolada iyo maamul magaalooyinka oo dabcan sanadkan aad moodid inuu xamaasad gaar ah lahaa marka loo eego jawiga taageerayaasha oo kale markaad fiirisid barbilow ilaa bardhamaad bal waxaan nooga warbixisaa qabanqabadii challenge-rooyinka kala duwan uu soo maray tartankan sanadkan ciyaaraha gobolada iyo maamul magaalooyinka guud ahaan aad baad u baasantihiin xafiiska SRTV oo intii ciyaaraha socdaan iyaguna isku dayay inay si fiican uga qayb qaataan ciyaaraha isla markaana ay shacabka u gudbiyaan ay la socotaan xafiiska dhalinyarada ciyaaraha isbedelkii kadib waxaa hawl fara badan laga qabtay sidii maxaa la yiraahdaa dhalinyarada dib loogu soo celin lahaa ciyaaraha xafiisku wuxuu dhisay dhammaan federeeshinadii xafiisku ku shaqeynayay xilliga ciyaarahan hadda aynu ku jirnaa waxaa la dhisay ciyaaraha federeeshinadii ciyaaraha qaban lahaa si ka duwan markaas sidii hore federeeshinadaasi ayaynu ku wareejinay shaqadii iyaga aynu shaqadii ku wareejinay iyaga aynu isku daynay inay ciyaaro iyaguna si fiican u wadaan waxaynu dhisnay guddiyo kala duwan oo ah guddiga farsamada oo farsamo yaqaana waxaynu dhisnay guddiga tababarka guddiga tartanka la yiraahdo oo ka kooban dhammaan maamul magaalooyinka iyo gobolada iyo xirfadlayaasha ciyaaraha federeeshinadii ka kooban oo iyagana loogu talagalay maalin kasta ciyaarta dhacda inay qiimeeyaan oo ay arkaan maxaa la yiraahdaa wixii dhibaato ay ka jireen ay isla xalliyaan isla eegaan si cadaaladna loo eego ayaynu dhisnay guddiyadii kale iyaguna logisticadii iyo waxaynu dhisnay maxaa la yiraahdaa soo dhaweyntii ciyaartooydu soo dhaweynaysa ayaanu dhisnay marka diyaargarow aad u ballaaran ayuu xafiiska u galay iyadoo aanu kaashanayna bahwadaag really aad u muhiim ah ee shaqooyin fara badan la qabatay ilaa maanta heerkaanu soo gaarnay shaqooyinka aynu soo wadnay aynu ku soo gaaray sidaa buu ahaa diyaargarowga aanu sanadkan ugu talagalnay guud ahaan waxaynu diyaar garaynay biladihii aynu ugu talagalnay ciyaaraha kala duwan iyo guulaystayaasha ama dadka magaranaysa ku guulaysta tartanada kala duwan ee qaadan lahayn baanu horey u diyaarinay waxayna gebi ahaanba qarinay waxa la raba in la bixiyo mustaqbalka sidii tii hore in laga sii sheekeeyo oo aynu ugu talagalnay ciyaaradu stepka la guurayaba calaashaan waxay jirtay xilliyadii hore waxaa loo sheegi jiray dadka in la siin doono wax intaa la eg markay halkaa gaaraan taas waxay qayb ka qaadanaysaa inay isku dhacaan ciyaartooyda in badan oo kamid ah marka diyaargarowgeena diyaargarow aad u ballaaran buu ahaa si fiican aan ugu diyaargarownay ciyaartu maanta siday u dhacdo bacdi rabi ilaah oo isaguna nala garab galay waatay afar group baa loo qaybiyay tartanka ciyaaraha gobolada iyo maamul magaalooyinka groupka labaad hanilada kooxda ku jirta ayaa ku guuleysatay tartanka sanadkan waxay kula jirtay goolka maamulka magaalada Qabri Dahar maamulka magaalada Jigjiga iyo waliba sidoo kale maamulka magaalada Qabri Bayax saddexda kooxood bay ka soo baxday kulankan
marka kale aan ka imano diyaar galowga waxaa jiray qabanqaabo kale oo dabcan ciyaartan la xiriiday in tartanku intuu socdo kale waxyaabo la diiwaangeliyay ayaa jirtay abaalmarinta maanta markaad bixinayseen waxaa ku jirtay ciyaaraanada ugu fiican oo kale bal si guud abaalmarintii maanta aad bixisoon oo kale bal noo faahfaahin guud ahaan horta tartanada ciyaaraha la ciyaarayay maamul magaalooyinka iyo gobolada ee hadda socday waxay ka koobnaayeen laba qaybood kubadda cagta iyo waxay ka koobnaan ciyaaraha fudud waxa loo yiraahdo bootinta orodada iyo wixii lamid ah labada qaybood ka koobnaayeen sida la socotana afarta kooxood waxay soo ciyaareen ciyaarihii kala duwan say reebkii bay soo ciyaareen 16kii 8-damaadkii 4-damaadkii maanta ilaa ay gaadho inay jareer soo baxdo tartankan marka waxaa kaalinta koowaad soo baxday gobolka jarar ayaa soo baxay oo noqon doona kooxda horyaalka deegaanka Soomaalida u haysa tan iyo inta ciyaar kale lagaga qaado koobkaasi ay timaado tartan kale mid lamid ah lagaga qaado ay timaado ayay qabatay sidoo kale waxaynu siinay abaalmarintu kala duwan kooxdii kooda baxday oo aanu siinay koobkii aynu siinay oo aynu siinay lacag 100,000 ayaynu siinaynaa kooxdaas caawa oo aan jecelnahay cid lambar 1 guuleystay inaanu siino sidoo kale kaalinta labaad ayaynu siinay biladihii aan ugu talagalnay iyo 75,000 oo lacaga ayaa iyaguna insha Allah caawa xaflad aanu ku siin doonaa dabcan caawa waxaanu qaban doonaa xaflad weyn oo aynu ku soo xirayno isla markaana ku maamuusayno kooxihii ma garanaysaa guulaha waaweyn ka gaadhay waxaan abaalmarino siinay kaalinta koowaad dhinaca maxaa la yiraahdaa gooldhalinta ayaynu kaalmo siinay waxa kaalinta koowaad baxay ciyaarta guud ahaan jarar waxa kaalinta labaad baxay gobolka Qorraxay oo isaguna ciyaar aad u wanaagsan soo bandhigay waxa kaalinta saddexaad baxay gobolka Faafaneed waxa afar baxay gobolka Liibaan afartaas oo ahayd afar dhamaadka ciyaaraha isugu yimid ayaa iyaguna kaalmahooda aanu kala siinay sidoo kale waxa jirta inaynu abaalmarino goolkiibaradii ugu wanaagsanaa oo aynu abaalmarino gobolka jarar ka soo jeeday oo ah Cabdirasaaq Maxamed waxaynu sidoo kale anshaxa ku abaalmarino gobolka Liibaan iyo gobolka Nogob oo iyaguna ahaa tiimamka runtii aad ugu anshax badnaa khaasatan gobolka Liibaan oo kale anshaxayga markaan salka ku yar ka noon fiirino kooxaha kale markaad fiirisid anshaxa macallimiinta xitaa dhibaato ka jirtay Liibaan iyada see lagu xushaas leeyahay Liibaan run ahaantii waa kooxda ugu anshaxa wanaagsan bay ahayd ee sanadkan ka soo qayb gashay tartanka koox waxay ahayd isku kalsoon dhib kasta hadii loo gasho 5 gool hadii laga galiyo 2 gool hadii aad ka dhalisid wax aan dhibaato aan geysan protocolkeeda aad wanaagsanaa macallimiintooda ayaa iyaguna si fiican u wanaagsanaa tababarayaashooda ciyaartooyda kabtanka kooxda halka ciyaarsiinaya dhamaantood kuma kala duwaneen arinta runtii waxay cashir u dhigeen dhamaan gobolada intoodii kale isla markaana waxaan u qaadanay tiimka amaba kooxda ugu anshaxa wanaagsan sanadkan ciyaaraha gobolada maamul magaalooyinka ayaynu u qaadanay waynu abaalmarin iyaguna koob aynu siinay anshaxa waxa sidoo kale aynu siinay abaalmarin best playerka ninka ugu ciyaar wanaagsan ee maanta haynaya aan siinay iyaguna aanu abaalmarin siinay oo ka soo jeeday isaguna gobolka Jarar Axmed Cali waxaynu siinay macallinkii ugu wanaagsanaa Cabdixakiin isaguna Shariif oo isna Jarar aha guud ahaan markaad eegtid ciyaartooyda gobolka Jarar waxay ahaayeen ciyaartooyin iyaguna aad u dhisan bay ahaayeen aad bay maad garanaysaa iskugu xidhnaayeen aad bay coordinator u ahaayeen iyaguna dhankooga markaad eegtid goolasho kale waxaynu siinay 3 qofood ayaanu dabcan loolan adag ba ka jira halka lagu tartamay aad baa lagu tartamayay 3 qofood baa isdhaafi waayay oo min 6 gool dhaliyay mid wuxuu ahaa gobolka Jarar mid wuxuu ahaa gobolka Liibaan mid wuxuu ahaa gobolka maxaa la yiraahdaa Qorraxay buu ahaa 3daas qofood ee gobolka Jarar waxaanu siinay Xamse Cabdirasaaq ayaa xagga gool dhalinta 6 gool buu lahaa sidoo kale gobolka Qorraxay Abshir baynu siinay ciyaartooy isaguna aad u wanaagsan ahaa gobolka Liibaan isaguna Cabdicasiis Cabdirasaaq ayaynu siinay abaalmarinta gool dhalinta 3da ciyaartooy ee ka soo kala jeeda 3da gobol iyaguna waxay ahaayeen 3da qof ee ugu gool dhalinta badan ay ahaayeen ciyaaraha sanadkan waxaynu abaalmarin siinay oo kale waxa kale oo xusid mudan inaynu xusno guud ahaan markaan eegno tartanka gobolada ugu ciyaar wanaagsan markaad eegtid waxaad mooday goboladu iyo maamul magaalooyinka diyaar garow aad u wanaagsan soo sameeyeen markoodii hore inkastoo ay kala wanaagsanayeen naftirkeedu farqiyo kala duwan ay lahaayeen laakiin goboladu aan isleenahay gobolada ugu adag bay ahaayeen ciyaaraha sanadkan ee ciyaar wanaagooga markaad eegtid goolashay dhalinayeen markaad eegtid qaabka team workiga ka dhaxeeyay markay ciyaartu joogaan technically farsamo ahaan gobolada Jarar Qorraxay Liibaan meesha la yiraahdo Faafan iyo gobolka maxaa la yiraahdaa Erer waxay ahaayeen gobollo aad iyo aad qaab ciyaar fiican soo ciyaartooy fara badan baynu ka xulanay anagu naftirkeena sanadkan oo ilaa 60 gaarayo aanu doonayna inaynu geeyno ciyaaraha Ethiopia inay ka qayb galaan Premier League Ethiopia inay ka qayb galaan aan jecelnahay waxa kale oo aan ka liidanin Wajaale markaad eegto qaab ciyaareedka iyo ciyaarta adeegga adeegtid
iyaguna waxay ahaayeen tiim aad u adag baa gobolka city oo isaguna taariikhiyan lagu yaqaanay inay aad u ciyaaraan iyaguna ciyaaro adag ayay soo bandhigeen. waatay sanadkan isbedel baa ka muuqday oo la taaban karaa jiray isbedel dhinacaas ayaa jiro iyaduna hore aanu naqaal dadka qaarkood ay sii sheegayeen ma kooxda tartanka guuleysanayso sanadkan muxuu kaga duwanaa baad is leedahay sanadihii hore tartanka la qabanayay? runtii wax badan buu kaga duwanaa. saa la socoto sanadkan waa marka koowaad ee wuxuu kusoo beegnay xilli isbedel deegaanka ka jiray dalku, xilli qof kasta oo si xora u taageeri kara ciduu doono wuxuu doonana ma garanaysaa ku taageeri kara ayuu kusoo aaday deegaanku. isbedelka ugu weyn waxa weeyaan tartanku innagaaba qabanay xafiiska dhalinyarada ciyaaraha ayaa tartanka isbedelka ugu weyn ugu bilaabmay lambar 1 kaas waa lambar 1 waatay saa la socotaa barigi hore madaxtooyada lagu qabanayay annaguna tamalkaash keen waanu waardeynay ilaalo baan ka ahayn lama hadli karin garsoorayaashu markaan keeno garsooraha aanu dhiraahno kaasa qaadaya haddii kii loo baahnaan waa laga saaray haddii sidii loo baahnaa uu ka dhigay waa laga saaray marka innagaa sanadkan qabanay tartanka waa isbedel macnaha xafiiskii dhalinyaradii ciyaaraha iyo shaqadiisa ayaa loo kala baxay inay iyagu diyaar garoobaan ay diyaariyaan wixii ay yidhaahdaan ka xukuumad ahaan iyo ka shacab ahaan supportana la siiyo keliya in laga taageero inta kalena in annagu aan mad garanaysaa aan aad uga shaqeyno ayay ahayd taa isbedel wanaagsan bay ahayd saa la socotaana waxaanu sanadkan samaynay federeeshinadii baynu dhisnay si ka duwan sidii hore federeeshinadu ayaynu dhisnay federeeshinadu ayaa iyagu waxay soo dhigeen qaab ciyaareedka iyo jadwalka ciyaarta ayagaa keenay miisaaniyadda ciyaarta lagu maamulaya ee garsoorayada leh ee baardhiimkaan siinayno ma garanaysaa federeeshinada kala duwan waxaynu ku shubnay maxaa la yidhahdaa federeeshinada akoonadooda lagu shubay si ay iyaga u maamulaan xafiiska iyagu marka technical teamka technicalka aan dhisnay ayaa inaga la coordinate gareynaynay laakiin federeeshinadu ayaa system ahaan inay iyagu shaqeeyaan si aan weli aan horay deegaanka looga arag bay ahayd totally taa markaa waxay ahayd isbedel aad u wanaagsan oo keentay maanta ciyaarta halkaa in la gaaro macnaha xafiisku iyo cid kastoo kaleo xafiiska ka dambaysaba faragelin kumayna lahayn ciyaarta farsamo ahaan iyo ciyaar ahaan siday u socotay waxaa shaqadaa haystay waxay ahayd federeeshinada iyo xirfadlayaasha ciyaaraha iyo garsoorada team la yiraahdo teamka tartanka ayaa haystay teamkaas farsamada iyo tartamada la yiraahdo ayaa shaqadaas iska lahaa isbedel weyn bay ahayd halka shalay laga yaabo inuu wasiir soo istaago halkaas madaxtooyada ka imanayo buskoolad wado niman ciidama iyaguna ay ma garanaysaa saameyn ku yeeshaan halkay shalay ahayd in caawa loo sheego garsooraha berrito ciyaarta laga soo bixi doonta loo sii sheegay waa la sii ogaanayay iyadoo la ogyahay baa haddana la qaadayay marka taas waxay keenaysay cuqdad fara badan cadaalad darro fara badan oo ciyaartooyda ku dhacayso keenaysa morally inay xitaa wixiisi waayaan berri inay yimaadaan ciyaaraha ay kasoo qayb galaan waxyaalaha isbedelkii sanadkan jiray waxay ahayd garsoorayaashu federeeshinadu iyo inagoo iskaashanayna waxaynu keenay garsoorayaashii ugu quality fiicnaa Ethiopia CAF daayabaan keenay garsoorayaasha qaybta CAF keenay xiriirka kubadda cagta Africa ayaynu keenay si aynan xagga garsoorka dhibaato iyo wax la mid ah aynan uga dhicin iyagoo sidii la arkayay dhammaan taageerayaasha iyo shacabka deegaankuna iyo dadweynaha laga daawanayay ciyaartu si cadaalad ay ugu dhacday taasi isbedel aad u weyn bay ahayd si aan muran badan loo dhicin kaamirado faarti fara badan ayaynu ku xirnay maxaa la yidhahdaa goolasha si loo eegi karo haddii khalad yimaado xagga gooldhalinta la yidhahdo gool bay ahayd iyo ma ahayn looga eegi karo iyaduna keentay in lagu kala baxo mar la yidhaahdo rigoor ay ahayd iyo ma ahayn iyo gacan baa lagu kala baxo ayaynu sameynay isbedelka kale maxaa la yidhaahdaa ee jiri waxay ahayd saad la socotaan deegaankeena ciyaaraha isbedelka laga sameynayay oo aad ogtihiin qaybta orodka oo kale waxaynu u diray waxaanu geynay sululta dhalinyaradii deegaanka u dhalatay halkan iska fadhiday ee hibada u lahayd inay ordaan cid ma garanaysaa keligood iswadi jiray inaanu halkaa geynay si ay halkaa tababaro uga soo qaadaan oo ilaa heer qaran maanta ilaa heer caalami u tartamayo u diyaar garoobay inay u baxaan inay u diyaar garoob baynu geynay waxaynu markaa dhisay maxaa la yidhaahdaa structurekii qaab dhismeedkii federeeshinada qaab dhismeedkii ciyaaraha taas oo dee qiimeynadii aan lagu sameynay federaalku lagu bogaadiyey waxay keentay markaa in naloo soo diro tababarihii ugu caansanaa dalkan Ethiopia la keeno ciyaarihii bari dhaweyto aynu tagnay meesha la yiraahdo Arbaminj waxaanu noqonay kaalin saddexaad 19 dhalinyaro ayaana laga xushay anagu deegaankeena si loogu geeyo ay ugu qayb qaataan ciyaaraha horyaalka ay galaan sida daraadeed macallinkii xulka qaranka ayaa joogay oo isagu ka qayb galanay uu yimaado weeyaan macallinka soo heer federaalaha uu ka qayb galay ahayd xitaa deegaanada loogama baran in loo diro marka si ay talentiga hibada Soomaalida ku jirtay la arkaya iyo isbedelka jira ay uga faa'iideystaan oo loo xulo dhalinyaro aan isleenahay waxay ka qayb gali karaan halka
isbedelada jiri waxaa ka mid ah isa saxitaan inuu jiray maanta wixii qaldama in caawa la saxay berrito in lagu kala tegayo gobol kasta inuu halkaa ku sheeganayo wixii dhibaato isagu u arkayo halkaa lagu qancinayay kaamirado halkaa wada yaaleen subax iyadoo clean yahay lasoo wada gelayay waxaa jiray dhinaca nabadgelyada run ahaantii shalayto waxaa dhici jir waxay ahayd ciidamada naftirkood baa maad garanaysaa qaarkood iska dhex ordayo taageerayay garoon ku dhex ordayay qaarkood baa maxaa la yidhaahdaa tiimamka ku jiri jiray shaalaqaha ka leexo ciidanka askariga ka leexo waxaa jiri jiray taa maanta waa laga baxay ciidamada nabadgelyada hay-adaha kala duwan nabadgelyada isaguna si kaliya laaba uga shaqeeyay inaanan hal qof aynaan maad garanaysaa wax dhihin waxna gaarsiinayay ka shaqeeyeen iyagoo aanan qof wax ku dhufanin qofna dharbaaxin qofna cayn ayay ciyaarta ku dhameeyeen run ahaantii waxaan is leenahay aad iyo aad inaan ugu mahad celinaan doonayno waxa weeyaan hay-adaha nabadgelyada khaasatan ciidanka gaarka iyo ciidanka booliska labada ciidan oo har iyo habeenba nala soo taagnaa ay nala shaqeynayay isla markaana xitaa meel walbo ay tagtay ay tahay intay nala tagaan nala xalinay waxyaalaha dhibaatooyinka si shakhsi ah xitaa ayay guddi baynu jaran ugu jireen uga shaqeynay marka isbedeladaasi iyo kuwo kaloo fara badan ayaa maxaa la yidhaahdaa ciyaarihii sanadkan ay kaga duwanayeen sanadadii waata dhinaca kubadda cagta markaan ka tagno orodka laftigiisa waa la ordayay oo maanta u dambeysay 5 kilomitr baa la ordayay 400 baa ku jirta 100 mitr baa ku jirtay bal iyagana natiijooyinkii iyo kaalmaha ay kala galeen mudane wasir markaad fiirisid guud ahaan Soomaalida markaad eegtid waxaynu leenahay hibo dhinaca orodka inkastoo sheekada lagu oranayo cawl buu qabto hebel baa uu ordo ilaa geed uu qabsado ma istaagi karo weli runtii waanu doonaynaa dadka geedaha iyo cawsha qabtay inay loo yimaadaan runtii oo aanu weli hibadaas ka faa'iideysano aanu geeno meelaha fagaarayaasha looga baahan yahay waanu u baahanahay tartankan ciyaaraha fudud laba nooc bay ahaayeen bootinta iyo waxay ahaayeen orodada tartankan ciyaaraha fudud waxaa horyaalka sanadkan qaaday gobolka Qoraxi dabcan orod dhinaca kubadana kaalinta labaad buu galay haddana waxaad moodaa dhinaca orodka inuu hadda toolo xagaas guulo ka soo hooyay natiijooyin badan ka soo gobolka Qoraxi waa gobolada sida adag u soo diyaar garoobay oo ugu talagalay inay maanta koobo fara badan halkan ka qaadaan runtii aad bay organize gareysnaayeen waxay qaadeen 4 dahaba iyo 2 naxaasa ayuu gobolka kaliya qaaday taasa keentay inuu noqdo gobolkii ugu dahab qaadista badnaa isla markaana kaalinta koowaad aanu siinay horyaalnimada qaadanaya ciyaaraha fudud ee deegaanka sidoo kale kaalinta labaad waxaa galay gobolka Faafan oo isagu qaaday 3 maxaa la yiraahdaa 1 dahaba 3 lacag iyo 3 naxaasa 7 biladood buu qaaday labada gobol markaad isku dartid tirada grade-ka la siiyo qofku dahabka qaado markuu qaato 9 7 6 dhibcood baa la siiyaa saddexda marka la isku dardaro isku grade bay tagaan 48 dhibcood iyo 48 dhibcood bay noqdeen laakiin maadaama ay dahab fara badan 4 dahab haysato gobolka Qoraxi iyada ayaa number 1kii qaaday oo koobkii qaaday bay ka dhigan tahay afdheer isagoo kale 1 dahab bay qaadeen 2 lacag bay qaadeen iyo 1 naxaasa erer waxay qaadeen 1 lacag 1 naxaasi waxay qaadeen 1 ma garanaysaa dahabka ma labada gobol way ku yeerihiin malaha gobolada inta badan dahab qabo afdheer 1 dahab bay qaadeen nimanka la yiraahdo Shabeelle 1 dahab bay qaadeen waxa 1 dahab qaaday sidoo kale Liibaan iyaguna 1 dahab ka qaadeen kaalinta koowaad marka waxa baxday gobolka Qoraxi kaalinta labaad waxa baxay gobolka Faafan kaalinta saddexaadna waxa baxay gobolka Afdheer ciyaaraha fudud ee orodada iyo bootinta marka la isku daro صعب بدن هالوتمو صعب بدن هالوتمو برتوا قرون بوعدي عيارها بربارتي لصوحي ترتان لوغو باقي بلوشي خير ليدوما يا ابو صعب بدن هالوتمو صعب بدن هالوتمو waatay daawadayaal waxaan ku soconaynaa barnaamijka gaarka aan kaga hadlaynay tartanka ciyaaraha gobolada iyo magaalooyinka ee deegaanka Soomaalida dabcan maanta la soo gabagabeeyay mudane wasir inta aan u gaarin qaybaha dambe aan u gudbin dabcan inta badan waxaa maalmahan baraha bulshada saddex socday aragti ah in dabcan in gobolka Jarar iyo waliba sidoo si kale labada gobol
si goro loo hadalhayay dabcan ciyaarta waxay dhaceen oona ogeyn jacaylka iyo midnimada iyo wada noolaanshaha bulshadana inay tahay garoonka waqtiga la joogo aysan hayn mid sportiga ama garoonkan uusan hayn mid dabcan dadka lagu kala waxeeyana waan arkayna dhalinyarada xitaa laftiga iyagu ka markhaati kacaya waxay sameyn ogeyn marka fikradii noocaas la xiriira iyo ciyaarta maxaa kaaga baxay markaad fiirisay والله runta ahaantii markaad eegtid ciyaarihii soo socday muddadii hadda aanu haynay waxay nooga baxay in ciyaartoyda iyo dhalinyaradu ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan ciyaaro dabcan si gaar ciyaarta saako kale markaan fiirino dadku si kale uga hadlayeen kale markaad eegtid jarar iyo qorxi ba isku soo baxay dad fara badan oo maad aragtay ama khaswadayaal aan ku sheegi karo amaba dee aan fahamsanayn ujeedada ciyaartu ay leedahay ciyaartu muhiimadeedu ma ahayn in la kala raayay waxay ahayd in iscaawinta isdhexgalka dhalinyaradu lagu adkeeyo midnimada dhalinyarada inaanu adkeyno guushii guuldarrada dhalinyarada la qabsadaan dhalinyarada wada shaqaynta teamwork inay la qabsadaan sidaa daraadeed ayay muhiimad u ahayd dad badan baa markaa waxyaalo aan waxba ka jirin isla dhexmariyay facebooka oo sheegayay inay tahay meel rashbad ka dhici doonto dhibaato ka dhici doonto laba gool aan isarki karin waxyaalo noocaas ayaa la frame gareynayay saa la socotaan horta waa marka koowaad waa inaan ogaano ciyaarto sideeda ayay xamaasadu wadataa xamaasadaasi ayaa waxay keenaysaa mararka qaar dadku nin walba siduu jecel yahay inuu isagu u dhigo waxaa kaloo intaa dheeri ku dad iyagu inta badan aan fahamsanayn waxaan laga sheekaynayo oo dhan oo iyagu siyaasadeynaya ciyaartu maaha siyaasad waa kalgacayl iyo walaalnimo dhalinyarada isdhexgalkooda iyo ciyaartooydu inay helaan way siyaasadeynayeen waxay ku sheegayeen wax berrito dhibaato ka dhici doona laakiin cashir aanu maanta helnay waxa weeye in ciyaartooydu si ka wanaagsan even anshaxa sidii hore ay ahaan jireen si ka wanaagsan inay anshaxooda maanta u ilaaliyaan in si walaaltinimana oo isjacayla oo midka kale aanu qabsan ciyaartu ku dhamaa taageerayaashu inay noqdeen ama ay ahaayeen sidii markii hore ay ahaayeen taageerayaal ku xadidan roolka ay ku leeyihiin garoonka oo ilaalinaya anshaxa taageeranimadu ay leeyihiin kumaynan darsamin ciyaartooydu maynan ordin meel mayna tegin halkay taagnayn kamayna dhaqaaqin waxaan markaa aad runta ugu mahad celinaynaa xadaarada isbedelkan uu keenay waxaan oo dhan waxa sababay waxay ahayd isbedelka shalayto wixii jiri jiray maanta ma jiraan iyadoo waxaa soo hadal ay jiraan iyadoo waxaa soo dhibaato ay jiraan shalayna iyadoo gacan adeegii dhibaatadii dadka xoogga lagu hayay ay jirtay ayay rabshadu dhacaysay laakiin maanta iyadoo dadku ay si xor ah waxay doonaan u oran karaan siday doonaan cid u support gareeyaan waxay doonaan ay ku hadlayaan ayaan wax rashbadan dhicin wax iska hor yimaadayna jirin taasina aan oran karo waa xadaarada iyo isbedelka waxyaalaha uu keenay iyo ka qaybgalka shacabka iyo xiisaha loo hayay ciyaartan wanaageeda iyo inay noqoto natiijo ma garanaysaa laga sugayo oo sax inay ka timaado ay shacabkuna doonayeen ciyaartooyduna doonaysay marka waxaan oran karaa warar been oo ku tiri kuteen waxba aan ka jirin bay ahayd mana wanaagsanna awoodeedii ka qaab ciyaarkii kubad tartan ku qaaday markaas guud ahaan iyadoo si cadaalada garoonka dhayaaga aad u jeeday ka ma garanaysaa u qaadi ayay jarana kooxdeeda ku qaaday qorraxayna ay awoodeeda maxaa la yiraahdaa ay halkaas soo bandhigtay gool kulaadna markii ugu dambeysay ay gool kulaadna waa nasiib barcade inta badan waa kooxood laba isma maraysa la socoto hal iyo hal bay kala dhaliyeen halka ay ciyaartu ku dhamaatay muddadii ciyaartu ay soconeed kadibna gool kulaadka ayaa lagu kala qaaday labada kooxoodna way ku qanacsanayeen si qanacsanaan leh oo wanaagsan oo sharaf leh ay garoonka ka baxeen insha Allah caawana waxaynu ku marti qaadeynaa casho sharaf si aan u guddoonsiino xitaa hadiyadaha dheeriga aan rabno inaan kooxaha siino insha Allah ugu dhiirigelino ay iman doonaan casho sharaf baynu u sameyn doonaa mudane wasiir tartanka hadda waa soo dhammaaday maxaa xigi doona hadda tartanka markuu dhammaado inta badan deegaanada kale markaan fiirino waxaa jiro goobo akademiya oo kale haddaan soo fiirino oo dhalinyarada laga soo saaro oo inta badan lagu xiray markan tartanka markuu dhammaado masaasaa lagu dayn doonaa misoolese waxaa jiri doono dhinaca isboortiga waxaa lasii saari doonaa awoodda oo goobo lagu xireeyay ama horyaalo kale ayaa furmi doona tartano kale may jiri doonaan markaas kolley hadda tartanka ugu dhamaaday waxaa xigi doona waxay noqonaysaa waxaynu soo xulanay dadkaan isleenahay dhalinyarada ciyaartooyda ah ee xirfadda ugu wanaagsan ka muujiyay halka ayaa soo xulay dhalinyarada dib baynu ugu yeeraynaa hadda intaan u yeerayno la hadlaynaa waxaynu doonaynaa in horyaalu ka sameyno si mustaqbalka halkaa u tegi karaan dhalinyarada orodada iyaguna soo caanbaxay iyaguna hibadooda halkaa kusoo baxay dahabka qaadi iyaguna inaanu ku xareyno ayay noqon doontaa meelaha tartamada lagu bixiyo waa sax deegaankeenu ma laha akademiyad ciyaartooyda lagu xareeyo taasna waa hal caqabada oo weli innagayna hortaagan wey sidaad la socotaana sanadkan waxaynu rajaynaynaa inaan hawshaasi hawl badan ka qabanno howlahan bilowna laga sameeyo ayay noqon doontaa laakiin inta taa laga gaarayo haddaba waxaynu ugu xariisayn akademiyad kale oo adisaba ku taalaanu ku xareynay isla markaana waxaan isku daynaa in akademiyadda ku xareyno oo aanun tiimamkaas iyaguna aan dhisno kanama u sameyno hadda waxaa dhisan laba tiim oo tiim liu hile ay leeyihiin ciidamada liu ciidanka gaarka ay leeyihiin iyo tiim xafiiska iyagu uu leeyahay oo ku jira horyaalka heer maxaa leedaha behraawi league ayaa jira
kuwa qaybta geli karta inaan kuwa geyno contract baynu kula jirnaa ciyaartooyda ciyaartooy kastoo wanaagsan mishaar baynu siinaa dharkii iyo wixii aad siiladu baahneed baynu siinaa labada dhinac bay siiyaan taasaynu xoojinaynaa marka inaan kooxa dheeriya aanu samayno ayay noqon doontaa inta u baahan iyagu in tababarkooga kuliyada la geeyo iyaguna akademiye la geeyo iyaguna inaanu geyno ayay noqon doontaa oo aynu ma garanaysaa arrintaasu sida ugu dhaqsiyaha badan weliba hawsha u qabano marka tartanaa jiri doona imika la qaban doona miya horyaal oo kale ha waxaa la qaban doonaa dhowr tartan baa hadda la qaban doonaa kow horyaalkii sanadka waxaynu qabanaynaa markii ugu horreysay deegaanka soomaalida oo aan kooxo fara badan filayna inay kasoo qayb galaan si xor ah ayaa loo qabanaya koox kasta oo diyaaro inay kasoo qayb gasho horyaalka waxaa loo sheegayaa waqtiga la register gareynay registrationka ayay iska bixinayaan way register gareynayaan kadibna waxaynu sameynaynaa horyaalkii inaynu wadno dhowr bilood socon doona ciyaarahaas inay socdaan waxay noqon doontaa homi away lahaan doonto la tegi doono kooxda garoonkeeda lagu soo ciyaari doono qabridaha ay jarro tegi doon jarro ay liibaan tegi doonto kala dabcan saas liiga ciyaar kasta halkeeda ay ku martigelinaysaa halka kalena way tegaysaa home away bay qaadanaysaa marka waxay noqonaysaa in ciyaartooyda marna gobolka erar loo socdo marna gobolka city loo socdo marna gobolka shabeelle la tagay iyo doolo la tagay noqonaysaa taasina ay kor u qaado isdhexgalka dhalinyarada iyo ciyaartooyda iyo bulshaduba ay isdhexgalaan isgacan qaadaan ismartigeliyaan bay noqon doontaa waxaynu sameynaynaa oo haddaba already aan u dirnay dhammaan xafiisyadu inay diyaariyaan kooxo ay diyaarsadaan tartan baan u dhalaynaa dhammaan xafiisyada heer deegaan xafiisyadu heer deegaanna waxaynu iyagana u sheegaynaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan usoo diyaariyaan kooxahoodii tartanada uga qaybgeli lahaa laga soo bilaabo xafiiska madaxweynaha ilaa xafiiska iyaga xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha inta u dhexaysa iyo wakaaladahu heer deegaan dhammaantoodba tartan kooxa ayay yeelan doonaan kooxaha ayay qaadan doonaan ciyaartooyda iyaguna ciyaaro waxaynu u sheegaynaa inay kooxaha ku biiraan xafiis kasta wuxuu samayn doonaa kooxdaas ayuu dhar siin doonaa kooxdaas ayuu lacag siin doonaa kooxdaas ayay noqon doontaa koox u ciyaartay magaciisa ku ciyaartay ayay noqon doontaa dhammaan xafiisyadana waanu u sheegnay inay iyaguna taa u diyaar garoobaan ayaan sheegaynaa waxaynu qaban doonaa koob qaasa oo isaguna sida dhaqsiyaha badan isaguna loo diyaarin doono markii horena qorshahaynu ugu jiray haddana waanu qaban doono oo loo qaban doono isaguna waxaa jirtaa lagu magacaabi doono isbedelka iyo wadajirka oo isaguna maxaa la yidhahdaa sida ugu dhaqsiyaha badan aynu qaban doono aynu ka xulan doono ciyaartooyda kala duwan iyo gobolada kala duwan ka imaan doono ciyaaro kala duwan iyagana ku tartami doona ayaynu iyaduna jecelnahay inaynu qabanno tartanadaasi ayaa insha allah aan rajaynaynaa sanadkan inta ka dhiman inaynu qabanno waxaynu ka qaybgeli doonaa tartanka Ethiopia 13 ciyaarood oo kala duwan ayaynu u diyaar garoobaynaa sanadkan inaynu magaranaysa ka qayb galno Ethiopia all Ethiopian Games Malawi Ethiopia ciyaaraha guud Ethiopia ayaa laga qayb gali doonaa diyaar garoow fara badan iyo hawlo fara badan iyaduna oo hadda aan wali ku sii jirno ayay iyaduna noqon doontaa inaynu u diyaar garoowno ayay noqon doontaa sanadkan insha Allah maadnaq ugu dambeeyay cid inaga caawisay mudane wasiir fursaddan ku siiyo dabcan والله horta intaan maadnaqto gal waxaan jeclaan lahaa inaan u sheego muhiimadda ciyaaruhu leedahay inaynu u garanayno laga soo bilaabo hogaaminta sare deegaanka ilaa shacabku inaynu fahamno muhiimadda ciyaartu leedahay sportu leedahay muhiimadda sportigu leedahay waxaynu uga baahanahay in si kaliya laaba looga wada qayb qaato nin waliba halkuu joogo ka qayb qaato ciyaartooydu Soomaalidu waad garanaysaan qofka xidiga noqday ciyaartooyda saaqid way nin saaqiday oo canjeerada ku fadhiisan weeday oo qadadii seexan kari waayay oo xaafadii ayaa laga aaminsan yahay taas keenaysa inaanu sportiga marar badan inagoo firfircoonideena leh inaanu soo iman weyno miiska dalka inaanu ka qayb qaadan ciyaaraha aanu noqon weyno marka waxaynu ku dhiirigelinaynaa dhinaca ganacsatada kale markaan fiirno deegaanada kale markaad fiirisid ganacsatada qayb weyn ku leh sportiga ma Sheekh Alamuddin Sheekh la yiraahdo maalqabeenka garoon weyn budhiso international ama heer caalami oo ku ciyaar heer caalami qaban kara deegaankeenu ganacsatada oo moodaynaysan fahansaneen muhiimadda sportiga waa sidaas waxa idinka qorsheysan arintaas sanadkan run ahaantii hadda sanadkan sport maalgelinta sportiga sport wax la yiraahdo waxa jirta habtuma sawaasaba investment baynu sanadkan qorshaynu ugu jirtay maalgelinta sportiga dabcan in sportiga la maalgeliyo waxaynu sameynaynaa kow in waxaan ka codsanaynaa dhammaan horta qoladan hantiileyda gaarka inay ciyaaruhu xoog saaraan dhalinyaradu in xoog la saaro inay ciyaartooda iyo ma garanaysa ay noqdaan kuwa ku mashquula intay ku mashquulaan maandooriyaashu in markay garoono sameeyaan maxaa la yiraahdaa business ah inay diyaarsadaan oo ay sameeyaan xafiisku dhalinyarada wuxuu ka caawin doonaa designadii iyo dhammaan wixii quality la xiriiriyay farsamada inuu ka caawin doonaa waxaynu ka codsanaynaa sidoo kale markaad eegtid hadda deegaanada kale fundraiser baa la sameeyaa lacaga ayaa lagu maalgeliyaa waxaa bixiya ganacsatada iyo shakhsiyaadka hantiiliyada gaarka ayaa bixiya deegaankeenu taa lagama yaqaano waxaana keenaya inagoo aanan ma garanaysaa ku foojigneyn iyo xafiiska dhalinyarada ciyaaraha oo aan si fiican horey uga shaqaynin hawsha sanadkan marka maadaama sanadkii hore aan howlo badan oo systemka aynu ku fadhiisana ku jirnay sanadkan waxaanu jecelnahay inaan taa aad u dhisno oo aynu ka shaqeyno si loo maalgeliyo ciyaarahaas sidoo kale
waaxaha kale dawliga ah iyagu naftirkooga inay iyagu naftirkooga kooxa samaysan xafiisyada maamul magaalooyinka oo iyaguna aanu marar badan noo sheegnay kana codsanayna iyaguna inay sameeyaan magaalo kasta kanamo ay samaysato maamulka magaalada Jigjiga inuu kanamo samaysto ka qabri bayax inay iyaguna samaystaan oo arrinta ay noqoto arrin lagu tartamo wax laga qabtay inay noqoto iyaduna ayaan doonayaa inaan halkan fursadan uga faa'iideysto inaga ka xafiis ahaana waxaan diyaar u nahay dhammaan technical cid walba oo gilli ah inaynu kala qaadano dadka dhammaantood inaan isu keeno iyaguna aynu arrimahaas ku baraarujino waxaynu xitaa samayn doonaa ganacsato gaar ah oo keenta dharka sportiga ayaynu sanadkan sameynaa processka already waanu bilawnay inaanu xitaa federal ka codsano LC inayna siiyaan LC bayna siin doonaan sportiga dharka sportiga lagu keeno si ma garanaysaa sportiga ciyaare geesa loo helo waxaynu design garaynay dhammaan gobolada dharkay xidhan lahaayeen gobol calaamado gaar in loo sameeyo looga gaar aan u sameynay design gaar aan u sameynay kadibna waxaanu doonaynaa inaanu ganacsatadii keelina dharka iyo calaamadaha isku xidhno kadibna aan shaqo abuurka dhalinyarada naftirkooda wixii aanu kaga xidhni karno aanu kaga xidhno si ma garanaysaa sportiga uu noqdo mid isku xidhan hadda waxaad arkaysaa tii waxaa la qabaa koox kale la qabaa funaanadii waxaa la xiran yahay kooxa kale lagu ciyaaraya Manchester United waxa ciyaarahoodii marka taa inaynu sameeyno taa marka in dhammaan ganacsatada xafiisyada dawliga iyo kuwa dawliga ahaynba dhammaantood inay ka qayb qaataan ayaynu ka codsanaynaa intaa kadib runtii waxaan u mahad celin lahaa shaqaalaha xafiiska dhalinyarada ciyaaraha oo runtii habeen iyo maal aanan ka seexanin shaqadan inay sidaan u qabsato farsamo yaqaanada iyo kuwa maamulka oo iyaguna dhammaan xafiiska iyagu intay ciyaaraan sicin waanu soo xidhnay most probably shaqaalahaasi oo runtii hiil iyo hoo waa daalay aan odhan aan waxbana weydiinin oo ilaa ciyaarta maanta ka dhamaatay halkaa taagnaa waxaan jecelahay inaan iraahdo waxaa tihiin shaqaalaha ugu fiican deegaanku aad iyo aad baad nagu mahadsantihiin shaqada fiican aad u qabateen shacabku waxaan u mahad celinayaa xafiisyada nabadgelyada number 1 oo ah xafiiska sida غير caadiga noola shaqay sanadkan oo de inay ciyaarta qabsoonto qayb libaax sababtiisa qayb libaax ka qaatay warbaahinta iyaguna kala duwan NSR TV iyo kuwa kale maxaa la yiraahdaa gaarka loo leeyahay Nabad TV Star TV RTN TV ma tirin karo dhammaantood iyaguna si kale ilaaba iyaguna reaalna weydiinin waxayna u baahanayna weydiinaan barnaamijyo iyo coverage fara badan ay sportigu siiyaan ciyaaruhu ay siiyaan sanadkan iyaguna waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin fariinta quruxda badan ee aad u gudbiseen dhalinyarada kale sida iyaguna uga qayb qaadan lahaayeen dhammaan xafiisyada kale iyaguna sida guud uga qayb qaatay xafiiska managementiga maamulka maxaa la yiraahdaa college managementiga iyo nursing college ko iyaguna ciyaartooyda noo seexiyay oo de noo hayo dhibaatada ciyaartooyda la garanaya iyagoo leh inoo siinay dhamaan howlabo nooga qabtay iyaguna aad baan ugu mahad celinaynaa waati daawadayaal markana waxaan fiirin doonaa labada kooxood ee gobolka Qoraxay iyo waliba sidoo kale gobolka Jarar oo dabcan ku kala jiray groupka koobaad iyo waliba sidoo kale groupka labaad ayaa dabcan final isugu yimid haddaba jaran noocee ay soo mareen labada kooxood ee gobolka Jarar iyo Qoraxay laga soo bilaabo group stage-ka ilaa ay hadda kulanka ugu dambeeyo ay foodes geliyeen maanta dabcan warbixintan ayaa idinka diyaarinay ee daawasho wanaagsan daawadayaal waxaynu yara jilaacaynaa heerarkii kala duwanaa ay soo mareen labada xul ee gobolka Qoraxay iyo walibana gobolkaasi Jarar kadib markii ay finaalka labadoodu isku qaabileen xulka gobolka Qoraxay ayaa waxa uu soo maray group stage ay ku jireen 4 xul oo kale kuwaas oo iyagu markaasi ku hayeen xulka shanaad kadib waxay ciyaartii ugu dambeysay ayaa waxa ay la ciyaareen xulka gobolka Shabeelle oo markaasi kaga badiyeen 1-0 halka xulka gobolkaasi Jarar ay markaasi la ciyaareen 4 ismaamul oo markaasi iyagu markaasi kooxda afaraad ay ku ahaayeen waxaana guushii ugu weyneed ay markaasi gaadhay ay kamid ahaa maamulka magaalada Qarbayax oo ay kaga badiyeen 5 gool iyo 1 kadib waxay u soo gudbeen wareegga 8-dhamaadka wuxuuna gobolkaasi Qoraxay wareegga 8-dhamaadka la kulmay maamulka magaalada Qabridahar oo markaasi uu kaga badiyay 6 gool iyo 1 halka xulka gobolkaasi Jarar uu markaasi la kulmay gobolka
wagaag daawadayaal intaas ayaan ku saafmeeraynaa barnaamijka gaarka aanu kaga hadlaynay tartanka ciyaaraha gobolada iyo maamul magaalooyinka daawadayaal waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa wasiirka xafiiska dhalinyarada ciyaaraha ee deegaanka Soomaalida aad baad mahadsantahay mudane wasiir waqtiga qaaliga aad noogu hortay daawadayaal dabcan waxaan isku dayi doonaa baahinteena dambe in aan soo gudbin doono barnaamijyo kale oo la xiriira tartanka ciyaaraha gobolada iyo maamul magaalooyinka waxyaabihii laga diiwaan geliyay tartanka intuu socday daawadayaal waa Daar Cali iyo Nadiir oo qaybta farsamada fadhiya iyo Radwan Maxamed Khaliif dhamaanteena isku duban nabadeed